بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليال مانتا وحان كهدلينا قضب كأه أن إسويديسة إرجع ليرها أففك قارات كإنجليز كأنبا فرنسيس كليرها development أنبا development محن إرجع أنو سوق هذا إرجع أنت بدي يدك كأنه كبدي هاي هرومر الصومالي كليرها أوكي محل هرومرين كرا dadka bilaadanku waxa ay marka ay wax dhisayaan waxa la horumari karaa waxaad hore u haysatay waxaad hore u haysan ma horumari karaysid مثلا marka aad xoolo dhaqato aad tahay waxaad hore u mari karaysaa xoolahaaga si aad mataqaana subaga uga dhalin lahayd si aad caano uga soo saar lahayd si ay caanahaad uga soo saartay aad u badin lahayd aad u gaarsiin lahayd dadkaaga sidaba marka dad xoolo dhaqato hadaa ka nimidnay aan nahay sideeban marka aanu ilaalinaynaa xoolaheeni amba geel ahaado amba lo ahaado amba ari ahaado marka la ay nimankii maamulkii dawladeena amba geeska Afrika ahaado amba gaar ahaan ahaado dalka Djibouti marka ay dayactir ay sameeyeen amba ay u sameeyeen siyaasad dhista ina ay xoolo dhaqaaqtooyinka hagaajiyaan si caanaha uga soo saar lahaayeen maanta waxa nasiib darro in macluumaadka xitaa imika aad aan maartay ilaahay aan u rajeynayno inay si khayr qabta ay ku dhacdo in ay wixii kale u haro dhanba ka madhaanba marka maxasiba loo badbaadin karaa waxaan ku xasuustaa marka hore marka maalimaha kamid ah magaalada Djibouti 2007 meel aan fadhiyay niman mataqaana xildhibaana iyo dawladda qaar u shaqeeyay waxay ka sheekeynayeen horumarka developmentka marka waan dhageysanay horumarka marka waxay raayeen waxa sida wax loo horumariyo sida wax loo horumariyo marka waxa la yaabana nimankan horumarka ka hadlaya waxay qudhooda hor yaalo cabayaan biyo France laga keeno oo Pierre Valleira amba Evian leeyahay biyihii la wadanka laga soo saaray kolka ahaan ka soo baxayay oo la yiraahdo Eljano imika waxaan maqlay tiita joora dib loo furay taaba kama hadlayn markaas ay uga midaha développement c'est naturel, il faut développer le pays, l'économie, waxbuu sheegay waxa nasiib daro ila cajaa'ib noqotay qofku ma taqaana marka aqliga guumaysigu wuxuu dhibaatooyin u keenaa inuu qofka aqligiisa iyo maskaxdiisa uu soo yareeyo waayo waxa uu isagu arkayo faraska waxa labada dhinac loogu qabtaa waa sidoo dhinacna u eegisan dhinacna u eegin waxaad moodaa inuu guumaysigu sida fardaha labada dhinac wax naga saaray sidaan dhinacanba waxbaan u arkin dhinacna waxdaan u arkin dhinac ayagu noo tilmaameen imika nimanka arag waxay ka hadlayaan horumar laakiin biyihii ilaahay dalkooga lagu sameeyayba ma cabayaan markaasaan inay de horumarka kala noo dambeeyay biyaha idina dalka kuwa lagu sameeyay maxaad u cabilahay bay biyaha ma fiicna beeyaan hashde wax la yiraahdo kalkeerka safeeya male de marka iyagu way awoodi karaan biyaha 300 faran amba 250 faran la siinayo oo Djibouti waa ilaa waxa laga hadlayaa $3 la siinayo ayagu iibsan karaan laakiin dadka marka shacabka iibsanaya 80 faran lasdana $1 ku iibsanaya iyagu marka kuwaas uma dareynayaan de marka waxaan ka dhibaatadaas haday jirto ay xanuun u keenaysaa aba ilkahay ka daadinaysaa dadka leedin diyamiyad ka hadashiino tiraadid hashdeega amba H2 cilmiga ma taqaana maartay chemistry-ga amba shimiga loo yaqaan afka Faransiis anu maartay xalkayga maaha hasaatee markan nin dhalinyaro weydiiyana way jirtaa buu laakiin in laga hadlaa waa in laga hadlaa oo dawladda la yiraahdo taasa maqan la sameeyo nimanka mas'uuliyiinta ee waddanka maamulada waa in iyagu ay u noqdaan hormood u noqdaan ay u horkacaan wixii dalka soo baxay iyagu waa inay ugu horeeyaan caanaha maanta oo wixii ugu yaraaya oo dhibaatada iminka macluum ba dadkii la isla leeyahay ubadka Djibouti waa hore ku bilowday macluumaadtaas waxa ugu bilowday caagada yar ee jabjabka ama caaga aan Yamani leeyahay waxa la ii sheegay markaan ka soo dhoofay 200 faran buu ahaa imika ilaa 300 iyo xoogaa buu socda say marka dadkii u awoodayaan waa caagada yar ee caanaha Yaman iyo Saudi Arabia laga keenay Saudi Arabia haday samaystaan
anugu waxaan qabaa in la samaysan karo see loo samaysan karaa waa laba gaari ay dawladdu iibinaysa baawarada lagu tamashlayo ee la yidhaahdo baraadoga ay joojiso inay iibiso sanadkan waayo baabuurkii qore baraadogu waa $60,000 Maraykan laba baabuur waa $120,000 Maraykan waa taas ay mataqaanaa ay sanadka wixii lacagta baawarada ila kuwii kalaba buuxee sanad walba baawar cusub ay iibsadaan horta baawarada cusub in sanadka la joojiyo si loo sameeyo haddaba loogu soo laabto sidii loogu qaban lahaa caanaha si loo soo saari lahaa caanaha si loo soo saaraya waa in loo soo saaraa horta xoolaha in mataqaanaa badbaadiyo abaaraha laga badbaadiyo soo abaaraha looga badbaadin abaaraha waxa looga badbaadinayaa markuu abaartu ay saa dhacdo booyado halkii ilaa 2 kilomitirba amba 2 kilomitirba waa ina booyad lagu sameeyaa biyo lagu shubaa qolooyinka injineerku iyagaa garanaya injineerada maaragtay ay waxay yidhaahdeen bac baa loo dhigaa si uuna u gelin waxa la yidhaahdo mataqaanaa bacteria la yidhaahdo biyahaasi ilaa muddo hayn karaa waxaa samaysta dalka la yidhaahdo Sao Tome and Principe West Africa island yaro Portugiiska gumaysan jiray marka biyahaasi waxa loo furi karaa dadka xoolo dhaqatada ama beero yar ku beeranaya marka uu roobabka ay joogsadaan waqtigan oo kale abaaruhu ay yimaadeen laakiin inta kale booyadaha ku shabay waa loo haynayaa maxaa marka ay muhiim u tahay in xoolaha la badbaadiyo waxaa yeelay maanta inuu hilibku qaali yahay Djibouti taasaa keentay waayo xoolihii baa qaaliya afarta xoole la keenay soo haran ka soo hara abaaraha waxa la geynayaa dibadihii carabta in loo dhoofiyo walaalayaal qodobka xagga baan ku soo gabagabeynayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh